kulanti habboon idil ahaantiinba daawadeel meel kastoo aad joogtaan halkani waa xarunta guud ee telefishinka saab uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Goor sheegtuna daawadeel waxay soo gaadhay amintan idin soo gudbin jirnay war wixii dalkii dibadda naga soo gaadhay warkana waxa uu diyaar u dila socodsiin doona haddii Allah uu dileedmo anigoo Cabdiraxmaan Abdullaahi Maxamuud Fantastiga qodobada daawadeel idin hayna wararkeena kuwa caawa ugu door korona waxa kamid ah qaraxyeys xigiga ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya kuwaas oo sababay khasaare kala duwan. shirweynaha wada tashiga dawladaha hoose ee Soomaaliland ayaa la filayay in maalinta Axadda ee toddobaadka inagu soo food kale uu ka furo magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. tartanka orodka gaaban oo ay ka qayb galayaan in ka badan 500 orodyahano ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Sheekh Cabdilaahi Xasan Xaashi Cumar Barbaraawi ayaa waxa uu ka hadlay sheekh u dhashay dalka Sacuudiga oo ku fadwooday in heesu ay xalaal yihiin arrintaas oo hadalhayn badan ka dhalisay dunida Islaamka. jilaaga caanka ee reer Hindiya ee Salmaan Khan ayaa lagu xukumay 5 sano oo xariga kadib markii lagu eedeeyay inuu gaasi sharci darro uu sameeyay. xubinta ciyaaraha waxaan idinku haynaa natiijada ciyaaraha kooxda Arsenal oo ka badiyay kooxda CSKA Moscow. sidoo kale daawadeen waxay idin haynaa warbixin ku saabsan nin meedkiisa la raaciyay dahab gaadhiya $2 milyan oo dollarka Mareykanka. daawadeel kuwaas waxay qaar ka mid ah qodobada wararkan idin hayna kuwa ugu door koron haatana ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan.